kusoo dhawaada barnaamijka aanu ku wareysanayno Mustafa Xaaji Cadow oo aqoon-yahan u dhashay deegaanka Soomaalida. waxaanu Mustafa wareysigiisan aanu ka qaadaynaa oo noqon doona waxyaabo kala duwan ama wareysi meelo badan taabanaya. Mustafa kusoo dhawow Hong Cable TV. waa mahadsantahay cali ayaan Hong Cable TV aad buu mahadsan yahay. marka hore haddaan in yar maaragtay dadkan dhageysanaya qofka aan ahay u sheega kulli degmada Doolow ayaan ku dhashay. iskuulka waxaan ku bilaabay degmada Filtu. haddana Nageel ayaan maaragtay ku sii waday oo iskuulka hoose iyo dhexe ayaan ku dhameeyay. jaamacadda digriga koobaad iyo kan labaad ba Addis Ababa University ayaan ku dhamaystay. siyaasadda muddo 15 sano ayaan ku jiray oo baarlamaankeenan kelilkana 2 jeer aan soo galay. markii dambana 5 sano federationka ayaan ku jiray aqalka sare ee baarlamaanka Itoobiya. waxaad daraasad ka samaysay oo daraasadeeda ka qortay isla markaana aad u gudbisay inagaga maqan ama xildhibaanada inagaga maqan deegaanada kale aynu walaalahanahay. bal waxaan jeclaan lahay horta inaynu daraasadaasi iyo saad ku samaysay inaynu markaasi ku bilowno iyo natiijadii markaasi halkaad gaarsiisay daraasadaasi. sidaas way jirtaa. markaan baarlamaanka ku jiray ayaan maaragtay ogaaday inay kureys naga maqan tahay oo markii anaga maaragtay dadkeena tirikoobka macnaha tirikoobyada la sameynayay markii la eego inay kureys naga maqan yihiin ayaan ogaaday. baarlamaanka saarana ama aqalka saarana asaga ayaa u qaabilsan inuu dadku u xaq sooro oo maartay wakiilashada dadka inay sinaadaan asaga u qaabilsan. marka halkaas aan joogay muddo 6 bilood ayaan dhex socday. macnaha daraasadda ma badno waa yarta waa kooban tahay. marka hore sharciyadeeda ayaan soo eegay. dastuurka muxuu ka leeyahay arrinta awaajiyada bayaanada macnaha arrinta iyada ku aadan ee ka hadlayna maxay leeyihiin tii baan soo aruuriyay. markaad eegta dastuurka Itoobiya qodobka 54 laantiisa saddexaad macnaha wuxuu sheegayaa baarlamaanka Itoobiya horta 550 inuusan ka badan karin. marka waa xadidan yahay hadduu shacabka kordhana isma bedelaya. isla markaas 20 kursi oo 520 kaas ka 550 ka mid ah 20 kursi waxaa loo qoondeeyay qowmiyadaha yaryarka ah oo minoritiska ayaa loogu tiragalay. marka waxaa soo haraya 530. marka taas ayaa Itoobiya ay qaybsanaysaa. waxaa kaloo marka jira 1987 taariikhda Itoobiya waxaa la sameeyay tirikoob ayaa Itoobiya laga sameeyay. marka tirikoobka asaga wuxuu muujinayay Itoobiya macnaha shacabka Itoobiya inuu yahay 53 milyan 477 kun iyo dhowr qof 256 baa wehelisa ayuu ahaa. inta gudaheeda dad adiga nus milyan ku dhow oo in yar ka yar waxay ahaayeen dadkan minority-ga la yiraahdo 20 qowmiyadood oo yar oo la sheegaya ayay ahaayeen nus milyan. marka waxa la yiri marka birigaas waayahay haddaba deegaan doorashada ama mirja kililka waxa la yiraahdaa imise qof bay noqonaysaa. shacabkii markaas joogay iyo kureystan ayaa loo qaybiyay. marka 100 kumba inay hal xildhibaan helaan ayaa soo baxday. macnaha qaa'idada halkanba way ugu qoran tahay. waxa shacabka Itoobiya baad kureystan u qaybinaysaa waadna ka jaraysaa intii qowmiyadaha yaryarka ahayd ayaad ka jaraysaa 20 marka taa ku salaysa waxa soo baxaysa 99 977 waa 100 kun. marka 100 kunba hal xildhibaan bay yeelanayaan baa la yiri. isla tirikoobkaas marka wuxuu soo saaray annaga macnaha yaani Soomaali ahaan tiradeenna inay tahay 3 milyan 198,514. taas macnaheedu waxa weeye adiga waxa weeye 3 milyan iyo 200 kun. marka qaacidada aan sare ku soo sheegnay oo 100 kunba hal xildhibaan uu yeelanayay markii loo raaca waxaan yeelanaynaa 32 kursi ayaan yeelanaynaa. taas markay sidaa tahay haddana dastuurka Itoobiya qodobka 103
maxay ahayd qodob hoosaadkiisa shanaad markaad eegto wuxuu leeyahay 10 sanaba hal mar ayaa tirikoob la samaynaya tirikoobkaas natiijada ka soo baxda iyadoo uu raacaya ayaa komishinka doorashada ayaa dib u habeyn ku soo samaynaya deegaan doorashooyinka ama marjaa kililka markuu soo sameeyana tala bixin ayuu soo saaraya oo maaragtay wuxuu u keenayaa baarlamaanka sare ama federationka ayuu u keenayaa baarlamaankan marka halkaas ayuu deegaan doorashooyinkii ayuu halkaas ku ansixinayaa 10 sanaba mar laba jeer baa hadda marka la sameeyey tirikoob marka tirikoobki lagu mabasaleeyay maba la soo qaadinba qodobkan dhanba waa la jibiyey lama soo qaadin marka annaga marka arrinta iyada dhib ay noo keentay waxaa marka yani 92 waa la sameeyey marka tirikoob kale waxba lama sameyn haddana oo maaragtay deegaan doorashooyinka dib looma eegin waxaa kaloo jira bayaanka la yiraahdo 251 xagga sharciyada markaas sii raacna ee soo baxay 1993 laantiisa ama qodob hoosoodkiisa 38 hal iyo labo markaad eegta wuxuu leeyahay baarlamaanka sare mar walba waa inuu xaqiijiyaa qowmiyadaha iyo shucuubta Itoobiya wakiilashada ay haystaan mid cadaalad ah dheelitiran inay tahay ayuu xaqiijinayaa waa qodob sharci iyadana marka qodob kale ayaa jira oo isla maaragtay bayaankaas ah oo asagana ah 37 misbaar 4 macnaha laantiisa afaraad oo asagana sheegaya wax allaala wixii maaragtay qowmiyadaha cabasho ama ka keeni kara ama midnimadooda wax u dhimaya ama cadaalad darro ku sameynaya waa inuu baarlamaanka eegaa oo u saxa intaan oo idil waxay muujinaysaa sharciyadda arrintan ayada marka 32 kursi ayaan xaq u leenahay sida aan saraba ku soo sheegnay haddana imisaan haysanaa 23 ayaan haysanaa 9 kursi ayaa naga maqan sharciyadeedana bannaanka ayay taallaa intaa markay tahay tusaale ahaan marka annaga deegaankeena haddaad soo qaadata mustafa xaaji cabdow hadda tirada aynu haysano waa 23 xildhibaan tirada naga maqanna waa sheegtay iyo inaga maqayin markaasi oo aynu ka baadi goobayna markaas waaya su'aashaas waan ka jawaabayaa laakiin tusaale yar aan ku siinayaa yani annaga deegaankeenna meelaha qaarkood 3 meelood aan tusaale yar ka siinaya tusaale ahaan jigjiga gobolka faafan yani qabri bayax iyo baabila iyo gursum iyo xarshin hal goob deegaan doorasho laga dhig hal laga dhig haday macna shacabkooda yar yahay oo 100,000 isku yihiin in laga dhigo dhibaato ma laha laakiin waqtiga ayada 1987 yani waqtiga ayada 311 bay ahay taa macnaheedu waxa weeye 3 kursi bay xaq u leeyihiin haddana hal kursi haystaante waa hal tusaalada kale liibaan haddaad soo qaadata 4 degmo ka koobneed yani Doloado Filtu Moyaale iyo Hudeed oo markaa ahaa 444 oo degmo walba ay 100,000 ka badan tahay u fiir 3 degmo oo markaa ku taal mid walba 100,000 waa ka badan iska bada yani gobolka mid walba 100,000 waa ka badan hal kursi bay haysataa inta ka maqan marka adiga waad arki kartaa tusaale ahaan qabri dahar haddaad soo qaadata qabri dahar iyo sheekoosh iyo shilaabo iyo dhoobo weyn 4 degmo hal waxaa laga dhigay deegaan doorasho ya oo biriga ayada waliba shacabkooda tirikoobka inkastoo doodo badan ka jirta annaga macagteena 225,000 bay ahaayeen waqtigaas wixii u qornay marka hal goob doorasho macnaha inay noqdaan xaq uma lahayn mana tusaaladaas markay sidaa tahay xagee ku maqan yihiin arrinta dheheysaan u soo noqonaya tusaale waxaan ku siinayaa deegaankan macnaha Tigray waqtigaas aan annaga 3 milyan iyo 200 kun aan ahaynay ayagana waxay ahaayeen 3 milyan iyo 100 kun marka sidaas waxay ku helayeen 31 xildhibaan bay ku helayaan oo xaq u yeelanayaan waxa intaas dheer hal waxay leeyihiin anaasa behersab waxaan la yiraahdaa ama hal qowmiyadoo yar oo 100 kun ka yar ayay leeyihiinoo hal kursi oo dheeri haddana helayaan marka la iskugu daro 32 ayay yeelanayaan intaasna waa xaq bay u leeyihiin sharciyan haddana waxay haystaan 38 marka 6 kursi annaga naga maqan tahay 6daas annaga iskale
waxaa kuu soo haray Benishangul Gumus. Benishangul Gumus tirkoobka halkaan aan ku hayaa waa kii horaya waqtigaas weeyaan. Marka tirkoobka asaga ahaa oo ayaga markaas waxay ahaayeen 460,000 ayay ahaayeen. laba qowmido yar ahna way leeyihiin. marka 460 ama 4 kursi bay ku helayaan ama 4 badhe laba oo ay ku helayaan maaragtay qowmidaha yaryarka ah ku dar 6 haday helaan 3 baa dheeri ku ah 3daasna halkaas ay nooga maqan tahay macnaha hadda gobolkaas isaga hadaad fiiriso 460 kun Soomaa liibaanna mar dhow imisaan dhahanay 440 iyo 4,000 labada way isleeyihiin marka liibaanna hal kursi bay haysataa tusaale ahaan Benishangulna 9 jigjiga haddaan soo qaadan lahayn hadda jigjiga markaa iyada 800,000 bay ahayd gobolkii jigjiga la dhihi jiray ama faafan macnaha maba u dhawaanaysa dee Benishangul intaa soo jaray ay ka badan tahay 4 bayna haysatay jigjiga asal ahaanba oo 8 bayna xaq u leedahay ogow ya marka Benishangul may 4 bay haystay marka jigjiga marka macnaha yani meeshay wax naga jiraan ay nooga maqan tahay waa halkaas mid kale qodobka kale waxa weeyaan mirja board birigaas waan u tagnay oo baarlamaanka baan keenayba de waxay yiraahdeen arrinta waa la saxaya waxa kale oo jira aniga markaan daraasadda sameeyay 6 bilood waxay ugu qaatay ma aha inaan daraasadda sameeyay 6 bilood ay ugu qaadatay waxay ugu qaatay waxay ahayd inaan guddiga standing committeeska guddiga qaami committee-ga inaan ku qanciyo macnaha inay arrintan qaataan marka ayaga ku qanciyina inuu baarlamaanka ajenda ka dhigo oo motion la geliya waana ku guuleystay arrinta ayada ahayd baarlamaanku intuu ka dooday ayaa si cajiib ah loo ansixiyay oo la yiri xaq daradan macquul ma aha inay socoto oo macnaha maarta qowmiyad anaga naga mid ah by the way yani markay adoo 23 haysta markay 9 ka maqan tahay 3 meelood oo meel shacabkeena wakiilasho ma haysta baarlamaanku ma haysta ka dhiganta almost 3 meelood oo meel marka birigaas baarlamaanku wuu ansixiyay waa la go'aamiyay in la saxa laakiin afhayeenka oo Dr. Mulatu madaxweynaha hadda kii dambeeyay aha kii midkan hadda maartay ku soo xigay gabadhan Mulatu Tshome Dr. Mulatu Tshome ayuu ahaa markaas wuxuu yiri arrinta hal ansixiyo laakiin wuxuu ku baryotomay waqtiga ayada doorashada qalabka doorashada ayaa la qaybinayay wuxuu yiri hadaan maanta dhahano awood waa u leenahay hal jooji hadaan dhahano doonarkii iyo dadkii lacagta nasiyo dhan waan ku ceeboobaynaa siyaasad ahaanna waan ku burburaynaa wadanka marka aan hadda ansixino doorashada dambe intaan la gaarin tirkoobka soo baxay aan ku salayno arrintan ansaxno tii baa la go'aamiyay minidku uu yeelaa way hadda qolooyinka doorashooyinka iyaga waad la kulantay maxaad kala kulantay marka ayaga horta birigaasna waa la kulmay mar dhowna waa la kulmay mar dhow aan la kulmayba mar dhow ayaan halkan kula kulmay jigjiga boorkooda ayaan halkan kula kulmay biriga hore dee waa baarlamaankaaba keenayba waa sax bay dhaheen ayaga taas marka laakiin halka maalin dhaweytaan la kulmay oo daraasadda aan tus daraasadda bal soft copy noogu soo diray dhaheen marka iyada meel aan copy ku samaynaa weynay laakiin waxay yiraahdeen hadayba daraasad noocaas ay jirto annaga hadda ayaaban diyaar u nahay doorashada inta ay dhicin ka horo ayaan daraasad samaynaynaa 180 maalmood gudahood ayaan daraasadaas ku soo dhamaynaynaa baarlamaanka waan u keenaynaa federationka marka idinka intaas ka hor hawlgala dalkan waxa ka dhacay isbedel guud isbedelkaasi deegaankeena waa saameeyay marka bal dhinaca isbedelka inagoo ka galina aqoon-yahankiina aad ka mid tahay bal ka war dhinaca isbedelka iyo jihada loo socdo waxa weeyaan macnaha 9kan xildhibaan inaan helno maanta fursado badan baa jira fursadda koobaad waxa weeyaan sharciyadeeda ayaa mid culus ah arrinta markaad ku doodo meel laga mara lama helayo waa dastuuri mar xeerna waa ka yaala taa waa mid labaad siyaasadda Ethiopia waa isfurfurtayo sidaama 100 sano 50 sano ay u soo doodaysay maanta ayayna heshay inay macnaha ay deegaan noqoto biriga hore arrintan meesha inoogu maqan tahay macnaha TPLF ayay ahayd ma aha shacabka Tigray ma haysano TPLF ayaa birigaas awood haysiyo cid la hadli kartaba ma jirin maanta sidii ma jirto fursadaas oo idil ayaa jirta Ethiopia kale xataa maanta hadaan arrintan u bandhigana dad badan ayaa na dhageysanaya marka arrintan inaan maanta soo dhacsana ayaa qabaa koow mid kale sidee wadada loo marayana waan tilmaamaya arrintan sharciyan horta waxa u qaabilsan xubnaha noogu jiro federationka xubnaha hadda federationka noogu jirona intooda badan mas'uuliyiin sarsare ay badan yihiin oo codkooda waa la maqlayaa laakiin waa mashquulsan yihiin ayaga marka aniga waxaan soo jeedinayaa ama xukuumadda ama xisbiga ama baarlamaanka saddexdoodaas midkood inuu warqad qoro
oo qodobadan aan meesha ku hayna iyadoo la cuskanaya arrintaas in la saxa doorashada intay dhicin warqadaas in la helo marka koobaad marka labaadna xubnaha federationka noogu jiro iyo macal xataa kuwa kale oo tawakaawish mikribeedka noogu jiroba iyo dad mutacalimiin ah inta la isku dara arrintan ayada ha loo istaaga waaba sahlan tahayba markaas dad yar kaliya ayaa dabagalka yeelanaya mas-uuliyiinta sare qasab maaha inay mar walba dabagalaan ayaga dadkii loo xilsa warqadaas mar haddii la hela annagaaba dabagalaynaba waxaana kaashanaynaa xubnaha aan aad mashquulka u ahayn federationka jooga marka arrintaas in macnaha maarata aan iska kaashanno mar dhow la bilaabo intay doorasho iyo waxaas la gelin taas horta waan ku tala bixinaya waayahay mustafa waxaan si aynu ognahay dalkan Itoobiya waxaa ka dhacay isbedel weyn deegaankeenana waa saameeyey isbedelkaasi sidee looga faa'iidaysan karaa isla markaasi waxaan jeclaan lahaa inaad cabirto jihada aad odhan lahayd ha loo dhaqaaqo intaasaan ayaan jeclaan lahaa inaynu bal marka hore intaynaan guud hoosu sii gelin bal inaan isbedelkan iyo sidayn kaga faa'iidaysan karno siduu inoo saameeyey maxay inaga inooga faa'iida maxay inooga soo kordhay isla markaas see looga faa'iidaysan karaa intaa markaynu isla helno jihada mustaqbalka aynu dhaqaaqana maxay noqonaysaa walaalo waa mahadsan tahay waa su-aashaas aad ay u weyn tahay waxbaan ka dhihi doonaa horta marka horeysa caalamka oo idil ayay dhaqdhaqaaqyo fara badan ka socdaan isbedello fara badan ayaa socda wadamada carabta wixii ka dhacay waan ognahay meelo badan oo afrikaan ah waxaad moodaa yacni waxaan la yidhahdaa dictatorshipka inay waqti badan fursado badan inay u harin etoobiyana markii loo eega yani waxaan miidiyihii ayaa maaragtay gacanta ka baxay berigii waa la control jiray hadda controlkii baa gacanta ka baxay social media ayaa la isticmaalaya dowladihii xataa way control laayihiin dhalinyaradii baa macnaha wax baratay marka yani controlkii baa gacanta ka sii marka dictatorshipka asal ahaanba cumrigiisu wuu sii baaba'aya marka waxaad moodaa Ethiopia macnaha fursadda kaliya waxay haysato waxa way wadada dimuqraadiyadda inay qaada haddana isbedelkan qolooyinka hadda maarta keenay team lama ama Dr. Abiy ama kooxaha kale oo la midka ah inay jahadaas qaadeen ayaa hadda muuqato waa ina caddahay macnaha way furfureen wax badan oo sameeyeen ayaa iska muuqda dadka xiriga laga soo deeyay maaragtay ururadii mucaaradka ah oo nooc walba lahaa oo maanta maarta iska oo qalinka qaatay oo wixii markood arkaysaa wadada ay mareen inay nimankan macnaha yani dimuqraadiyad u socdaan Ethiopia marka wada kalena ma jirtaba hatta haddii yiraahdaan wada kala marayna shacabkii ayaa nooci hore ahayn taas waa mid horta tan kale horta marka aniga waxa koobaad oo talada koobaad oo arrinta kale oo meesha taala waxa weeyaan caalamka naftiisa caalamkan dawlado waaweyn reer galbeedka khaasatan badanaa waxa wajahayay ayaga saameyn bay ku leeyihiin maaha ayaga un baa dadku u yeerinaya laakiin waxa gudaha ka dhacay iyo waxa banaanka ka dhacayaba labadaba inaad isku soo qabato weeyaan isbedelkan hadda Ethiopia ka socdo waa mid yani la wata oo caalamka waxatiisa naftiisa la wato dimuqraadiyadan iyo waxyaabahan wax la wato weeyaan taa markay sidaa tahay intaan Soomaalida macnaha u soo dhaadeen Ethiopia hadda waxa hadda soo cadaaday fikrado kala duwan awal hore macnaha dhibaato jirta bogta macnaha fikrada waxa lagu doodayo ma kala cad hadda way kala cadaatay baash fikrada Ethiopia hadda horta urur kasta oo siyaasadeed oo Ethiopia hadda jooga federalismka ayuu qabaa in la qaato hal urur xataa oo ani ogahay ama ruux inuu sheegi karaan u maleynay ma jira oo dhahaya federalismka aan iska daayna cida wax u qarsoon tahay ma sheegi karnaa ilaa anaga hadda dadka calooshooda ma garanayn laakiin dadka waxay soo dhigayeen urur walba iyo maaragtay party kasta waxay soo dhigayaan waxay leeyihiin yani federalism waa sax lagama maarma bas laakiin noocee laba arrimood way jiraan marka dad badan waxay leeyihiin federalismkan la yiraahdo ethnic based federalism oo qowmiga ah qowmiyadda ku salaysan tahay ayay Ethiopia badan qabtaa 20 sano soo dhaafnayba waa la cabsiinay dhalinyarada dad badan taas ay qabaan oo Soomaalina ay kamid tahay yani inay federalismkan qowmiga inaan la taabanin dad badan marka ku raacsan arrintaas ayada Ethiopia badan ku raacsan dad kale ayaa waxay qabaan xoogaa federalism kale oo geographic ku salaysan oo aan maarta qowmiyad idoo la eegin yaa israaci kara in la eego dad noocaas qaban way jiraan marka annaga Soomaali hadaan nahay kolleyba waxaan u badannahay oo inay noo fiican tahay aaminsannahay inaan annaga qowmiyadnimadeena yani aan nagala taabanin taas badana marka Soomaali badan way jiraan hal ruux lama weynayo laakiin Soomaali saas ay isku raacsan tahay aniga marka waxaan soo jeedinayo oo qabo waxa weeye Soomaali isbedelkan waa inay ka faa'iideysataa
annaga Soomaali haddaan nahay manila quuna qabsaday wax kale oo ma jirinba dhulkaan asaga qabsaday xayla salaasana wax uu noo qabtay waxba ma jirin dagaal u baan kula jirnayba mangistuuna dagaal aan kula jirnay nimanka EPRDF-na macnaha cadaalad noomay sameynino waana la gumaaday si xun baa noola galay marka weligeenba macnaha maanan helin marka inaan ismaamulno hore umaanan helin nololna Etoobiyada kale oo iyada nafteeda dib u dhaxsanna lamid manihin oo ka sii hooseynaa maalin dhaweyd waad arkaysaa yani xagga horumarka xataa Cafar iyo Benishaangul iyo waxaas oo dhan waan kaga hooseynay biyaha iyo leerkii waxyaabahaas markaan arkayna marka aniga waxaan soo jeedinayaa horta Soomaali asal ahaanteedba laba mid inay soo gasha wada kale inay haysato ma qabaniga in la yiraahdo war Etoobiyadan iyo waxaan maba isqaadan karnaa aan gooni u tashanna sharciga Etoobiya u banaanta arintaas dastuurku way ku caddahay qodobka 39 ay ku qoran tahay waxaan ma anfacaan aan gooni u tashanna taasna ayada nafteeda wax afkaan un laga yiraahdo ma aha adiga horta dadnimadaas ma leedahay adiga ma iswadataa dad ma tahay haye yaa ku agagaarkaada caalamkan kale agagaarkaada arintaas maxaad u haysaa su'aashaas iyadu waa balaarin laakiin hal wado way un kulay ha adkaata ama ha jilcaate ama Etoobiyadan yani shakigan aan ka qabno taariikhdii iyo wixii nagu dhacay cabsidaas aan weligeen meesha la taagnaanine bahashan aan dhax galno oo meel allaala meeshii arrin Etoobiya loogu tashanaya annagana aan dhax fadhino ra'yigeena aan ku darsanno wixii aan anficin aan diidna oon ka hadalno meeshii nagala badan laakiin halkaan ayaan ka qaylinaya oo fadhi ku dirira noqonaya ra'yigaas ani nacasnimaan u arkaa sax uma arka marka aqliga waa inuu shaqeeyo maalin dhaweyd waxaan soo qaaday South Africa markii maaragtay wixii ogaantoon ognahay lagu sameeyey Nelson Mandela ayaa imaaday apartheidkii wixii uu sameeyey wax anagu weligeed nagu dhacay iyo bini'aadamku ku dhacay ma ahayn Nelson Mandela la soo deeyay wadankii marka asaga inuu xukuumay noqotay markii la soo deeyay dadkii uu la hadlay dadkan dad baaba'ay oo wax walba lagu sameeyay bay ahaayeen dhiigooda ayaa karaayay uu soo hor istaagay wuxuu yiri macnaha qalbigayga wuxuu ii sheegayaa ii dareenkayga gaalkan macnaha maartay qoladan cadcad dhibkaas ii geysatay wixii ii geysteen inay dhimiyaan ayagana oon dhadhasiina ayuu ii sheegayaa aqligaygana wuxuu ii sheegayaa inaan la hadlo oon la tashta oon aan wixii hore inta laga bax aan hore u soconno ayuu aqligayga ii sheegayaa labadoodii marka aqligayga ayaan qaadanayaa buu yiri aqliga waxa uu ii sheegaya ayaan qaadanayaa oo wadankan saasaan ku wadaynaa wixii dareenkayga ahay oo laablakaca ahay ma qaadanayo waan iska dhigayaa waan laqayaa tii markay dhacdayna maanta South Africa oo dhan ayaa hogaaminaysaa Yurub ay la mid tahay taas mid ku ahoo caqsigeeda waxaa sameeyey Zimbabwe sidoo kale un baa iyagana loo dhibayahay dad cadaan ayaa joogay oo dhaqaalihii oo dhan iyo beerihii gacanta ku haya waxay yireen aan beerahana ka qaadan waa ka qaateen beerihiina waa la eriyay maanta wadanka Afrika ugu liito ugu saboolsan oo meel laga qabta leeyahay ay maraysa marka annaga Soomaali wax walba ayaa nagu soo dhacay inaan sheego macnaha muhiim ah dad iiga fiican baa jira laakiin aniga waxaan leeyahay ma laablakaca macnaha ma ahane aqliga aan ka shaqaysiin oo aan la hadalna dadka aan nacabnahay oo la sheeg aan ognahay inaan la hadalna saddex shay baan macnaha tii hore ma aragtay oo maxaan yeelnaa ahayd ayaan waxaan leeyahay ururada siyaasadeed ee aan leenahay waa ku faraxsanahay inaan dhowr urur hadda oo siyaasadeed aan leenahay mid maartay wadanka xukuumaya iyo dhowr mucaarad ah arrinta iyada aan macnaha in la dhiirigeliyaan qabaa marka ururadeenna mucaaradka aniga waxaan qabaa aqligal maaha inaan macnaha halkan ku ekaanne waa in Etoobiya doodaha ka socda ay dhax galaan isbahaysiyada kala duwan mid walba meeshii asaga barnaamijkiisa uu ku aadan yahay isleeyahay oo uu la jaan qaadi kara inuu noo gala oo dooda halkaas uu ka soo bilaabo oo halkaas dooda ay ka soo bilaabato ay jigjiga noqonin meesha la suugu imaaday dooda meesha ay ku imaanayso marka urur walba waa kala ra'yi dadka Etoobiya wax kala duwan jira annagana kala ra'yiyaan ururadeena waa kala ra'yi marka mid walba meeshii uu geli kara inuu galo taas waa mid kale mutacalimiinteena doodo badan ayaa Etoobiya ka socda debate doodahaas mutacalimiinteena waa inay ka hadlaan aniga waxaan u mahadnaqayaa oon ammaanayaa oo weliba aniga inaan ku dayda aan doonayaa rag kooban qaarkood aanan aqaanin laga yaabaa laakiin ninka la yiraahdo Professor Maxamed Xasan oo hadda buug qoray 3 jeerna aan dhageystay macnaha oo uu hadlay media uu ka hadlay oo Etoobiya idil uu ka hadlay Soomaalina uu ka hadlay macnaha arrimaha noocaas camal ayaan dadkeena macnaha mutacalimiinta
oo weliba tiibba amxaariga ah oo Itoobiya ku soo koray inay halkaas noo galaan oo dooda halkaas ka bilaabaan Dr. Cabdiwaasac oo asagana marmar kooban yani ka hadlay waan arkay sidaas camal halkaas in laga hadlo waan qabaa oo aan dooda halkaas geeyna taas waa qabaa tiibuga markaan u soo noqono horta buugaas anigu waxaan ku talinayaa adinkan home cable inaad noo samaysaan meel maartay loogu doodo buuga asaga ani buuga hadda akhrisaan ku wada horta ma dhamaynin laakiin hadda wax yar baan ka leeyahay waa hadda akhriskii baan wadaa buugaas horta waa falsafad buuga ma aha yani political program ma aha oo maartay uu xisbi iska leeyahay waa falsafad marka falsafadaas macnaha waxay leedahay مدمر وحوي مارت إسكاشي أيا منها إريج وجرونا وملايين في صوماليا هان مركا وحوي بهرت مركا هربا كدولية جيس كان أفريقيا دات كان دجن دولة دهان تاريخ دولة مركا إيش دقال الله بيع هاي وحوي تي وحي كانت إن صبول المد وحمد أنجوجنا مرول بمدين أي جوج تبع وروحاس مركا إن ينوقف في النادان إسكاشي بدان بلارن عن استعمالنا wax soo saarkan ballaaran cid walba waxa ay haysa inaan ka faa'iideysano oo lis dhaxgala dhaqaale ahaan marka dambana laga sii gudbo oo meel kale ka sareysa marka in lis dhaxgala oo dhulka marka tartanka inta dhulka la dhiga iskaashi loo gudba taas oo cid walba inay u faa'iida la sugaya horta ra'yi noocaas uu ka duulaya Itoobiya marka u soo noqotana buugan macnaha wuxuu ka hadlayaa siyaasadda maxay inay noqoto ay tahay dhaqaale maxaa inay noqoto ay tahay arrimaha bulshada maxaan ka yeelnaa dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada maxaan ka yeelnaa waxaan oo dhan ayuu xabad u soo dhigayaa dawladaha diriska yani arrimaha dibadda sideen ula dhaqanaa buugan waxaan oo dhan siyaasad dhammaystiran oo ayaa ku taalla horta markii la isku soo celiyay dhaqaalihiisa wuxuu dhaqaalaha markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay yani dhaqaale oo liberal ah yani open market yani maarta suuq furan dhaqaale ku salaysan isla markaana xeerinaya xaaladda waddanka oo dhaqaale furan oo keliya ay noqonayninoo meelaha u dardaran oo dhaqaalaha furan uusan gaari karin dawladda inay faragelisa qaabkan uu horta soo dhigaya oo markaa xor laga dhigaya inta badan dhaqaalihi siyaasadda markii loo soo noqdo wuxuu leeyahay wax la yidhaahda consensus nationalism macnaha waxa weye yani حتى وكل حوق بدنا وكل بدنا معانا إن واحد والب كوشين ومد أنت أنا نجمد وضوضا يبا إن أكاد النباش كونسنسس أريج اللي هذا الصومالي معنا يري ونقرأ ما غناه أيوليه وحوليه فيدراليزم كان وإنه صعدة فيدراليزم كان أو ولب قوم مجاه وإنه صعدة مد هذا الصومالي أي شكل وقفت أنا واحد قررنا باش يجينا واحد على الكتير مش يجي كرنا لكن وحوليه فيدراليزم كقومية ده كوساليسن oo ama multi national federalism waa inuu socdaa ha socdee xuquuqda kooxda ama group right waxa la yiraahdaa iyo xuquuqda shakhsiga labadaba si siman inaan u ilaalino marka oo midka qowmiyadda oo kali ah ay noqonino qofka shakhsiga ah oo Itoobiyaanka ah xuquuqdiisa meel walba inuu ku haysto labadan qodob aan qaadan ayuu leeyahay labadan qodob aan qaadan ayuu leeyahay markii hadda federalismkii waxaas laga hadlay midda kale wuxuu leeyahay multi party yani inay la sameeyo ururo badan oo wixii la caburinayo beenta iyo waxaas ma ahane ururo si fiican u tartamay waana muuqataa hadda way muuqataa hadda yani Dr. Abiy حتى meeshii uu ka soo baxay baa ayaa maartii uu jahayn leeyahay xoog haday tahayna militariga wali waa joogaa marka xoogaha rajada way jirtaa ani geesinimo ha lagu galaan qabaa geesinimo ha lagu galo yani maaragtay aan ka qayb galno wadanka marka bahalkaasayta arrimahaas ayuu ilaahay hadda ka hadlaya laakiin anu waxaan macnaha soo jeedin lahaa horta aniga naftayda inaan dhameeyaan u baahanahay oo buugan aan akhriskiisa dhameeyo meel dhexe u ii maraya ilaane markaan dhameeyana rag kale oo kala duwan inay macnaha imaadaan dad yani diidan iyo dad ogol iyo dad dhexdhexaad waxaan oo dhanba la doodsiiyo aan yara bislayna ani arrinta iyada inay la abuuro way la quman tahay aad baad mahadsantahay way fiicantahay taasi laftigeeda waa insha Allah waana taladii aad soo jeedisay Mustafa Xaaji Cadow haddaynu ka tagno xusbi cusub la asaasay oo la yiraahdo EPP xusbigaasi waxaan jeclaan lahaa aad afar ka
xusbigan unbaa madaxweynaha kor laga keenaya Addis Ababa laga keenaya madaxweynuhu Addis Ababa ka imanaya xusbiga soo sharaxan waxaasoo aad dadka ugu dhex jira hadda dadka maskaxdooda ka guuxaysa hadal hayntooduna ay badan tahay dadka aqoon-yahankana maalinta dibadooda ay aad ugaga doonaan arrintan horta niyow waxa weeyaan marka hore madaxweyne xisbi asaga intuu doorasho gala ayaa hadduu guulaysta ayaa markaas kadib ayuu madaxweyne soo dhisaa aslanba xisbi laakiin madaxweyne baarlamaan baa dhisa marka xisbiga iyo dowladda waa inay horta la kala fahmaa marka hore mar walba hal xisbi maaha waxa moogta dowladda soo dhiga dowladdan waa loo tartami doonaa ururada intay tartamaan xisbiga guulaysan doonaba cid og ma laha marka madaxweynahan baarlamaanka ayaa dooranaya haddii aan dastuurka la bedelinoo toos aan loo dooranin hadda sharciga Ethiopia u yaala waa parliamentary ma ogta baarlamaanka kelilka ayaa madaxweynaha dooranay baarlamaanka kelilka xisbiyadii ku guulaysta ama intay iskaashadaan laba yar oo midkood uusan guulaysan intay iskaashadaan ay madaxweyne soo dhisi doonaanoo Addis Ababa kama imaan kara inta dastuurkan jirana hadda dastuurkana cid bedeli rabta ma bala hadda waqtiga xaadirka ilaa doorashadan ay dhabaata in la bedelo wax u socdo hadda ma leh marka horta waxa xukumaya dastuurkan ayaa sida dawladda ay noqonin ayaa xukumaya mooyaane ururka ma horta taas in la fahmaa fiican sidaad u sheegtay sida Ethiopia dastuurkeedaba ku qoran haddii uu xisbi guulaysto oo guul badan uu hela oo 50 ka badan uu hela xisbigaas wuxuu xaq u yeelanayaa inuu dawladda soo dhisa dawladda deegaanka inuu soo dhisa ilaa jigjigaad ka hadashee inuu soo dhisa ayuu xaq u yeelanayaa markaasna Addis Ababa shaqo kuma lahane xildhibaanadii deegaanka Soomaalida oo dhan ka soo galay ayaa halkan isugu imaanaya oo madaxweynihii dooranay marka sifa ma jirto marka Addis Ababa asal ahaanba wax la ila magacaabid ma aha moogta madaxweynaha waa la dooranaya baarlamaanka doortay moogta marka Addis Abadan iyo waxaan ma jiraan meesha marka qodobkaas macnaha doodba kama taagin waxaan waa wax dad la dooranayo weey marka laakiin meesha mugdiga uu ku jiro waxaan u malaynayaa xisbiga qaabka xisbigan PP uu u dhisan yahay ayay dadku isku khaldayaan iyo dawladdi aniga hadda marka arrinta iyada horta dad mas'uuliyiin oo Soomaali ah ayaa ku maqan oo doodoodii galay oo noo soo bandhigi raba inta yaroon annaga akhrinay waxay ahayd inta ku qoran xeer hoosaadka PP ee qabyada ah waliba inta ku qoran ayay ahayd wixii shalayna soo dhignay oo dadka inay si fahmaan aan ugu tiragalnay haddana waa sidiyo marka kaas waan isla eegnay si fiican baan anigu soo akhriyay waxa ku qoran xisbigaas naftiisaba in laga jaahil baxa fiican sida qoran waxa jiraya guddi la yiraahdo guddiga heer kelel oo aad moodo inuu yaani la mid yahay de golo dhex camal waa golo aan dhahna golo oo heer kelel leh golahaas wuxuu yeelanayaa guddi kale oo fulineed waa heer kelel guddigaas fulineedna laba ruux oo xafiiska xisbiga ee heer deegaan ayuu yeelanaya marka dadkan macnaha maaragtay golahan heerka kelel leh ayaa hawshaas oo dhan qabanaya labada ruux oo maaragtay madax xafiiseedka u noqonaya xafiiska xisbigana ayaga ayaa dooranaya guddiga fulintan waa la dooranaya kuwana waa la magacaabaya labadan ruux waa la magacaabaya ayaga ayaa magacaabanaya laakiin markay ay magacaabista noocaas camal samaynayaan la tashi ayay samaynayaan waa hal xisbi ilaa wixii laakiin hawsha halkan ay ka dhacaysaa marka taas nafteeda Addis Ababa laga soo magacaabaya wax la dhahay wax jira maaha sidoo meesha ku qoran de wax oo kala waxa intaas dheer heer gobolna way ka jirtaa arrintaas golo heer gobol leh fulin heer gobol oo xisbiga leeyahay iyo madax xafiiseed iyo ku xigeenkiisa oo heer gobol leh heer degmana waa la mid heer qabaleen waa la mid intaba waxa iska leh macnaha dawlad deegaanka ayaa awooddaas iska leh la tashi un bay xagga la samaynayaan sidoo meesha ku qoran waa sida mid kale waa qabyo bahalkan waa qabyo un oo asaga macnaha waa in horta la qabyo tiro soo dhameeyo oo la ansixiyo oo mid kale dad baa ku soo dhex jiriyo Soomaali ahoo SDP ahay ayaa ku jiriyo ayagana shacabka inay u waramayeen bay sheegeen annaga intaan ka aragnay baan ayaan sii bayaaninayna aniga kama SDP mihi loo soco aniga laakiin xaq baa noogu leeyahay inaan annaga wax isweydiino shalay markaan isku imaan war ruux walba maxaad aragtay dooda sidaas inbay marka intaasaan ka ogaay arrinta iyada political programka xisbigaas weli ma arkin aniga laakiin waa mid laga soo dheeganayo un madamar guud ahaan laakiin xisbigan SDP ayaa laga rabaa inay Soomaali u soo bandhigaan maalin dhaweetana inay xoogaha yar bay sheegayeen inay dib weyn ka qabin xirsaadka uu yahay wax
haddaynu bal dhinaca markaad aynu meel tegayno ama aynu doonayno inaynu Ethiopia weyn wax la qaybsano sida doontaba ha u dhacdo horta waxaa loo baahan yahay midnimo haddaynan inagu sameyn waxba ma qabsan karno bal dhinaca arrimaha maxaa adiga kuu muuqdo dhinaca midnimada waan iska naqaanaa Soomaalidu dhaqanana waan leenahay fog dad xoolo dhaqateen u badneed dad wax qori jira ma aanan ahayn waqtiyadii dambeeyna ka faa'iideysanay dadkan wax bartay maxaad u malaynaysaa inay arrintaasi عليان وأيضا وسؤال مقوين سؤال شاذ أنيقا دراسة أن سمي باجرته أو إسكا قابنا أيضا نفت هذا أو إلا سقال قضب دراسة معناها وحي كساب سنة مقال أيوها أكتوالي مقال كاس حولية تقول الديقان كسومالي ذا عقبضها إيحال كوضا قضب كم ذا وحوها سيدا معناها سومالي لما لوجه هلي كرا إسلام مركان قبيلة ده لوجه بيحي كرا aniga Soomaalinimada ama midnimada hadda sheegaysa macnaha ka hadlaysa waxaan qabaa laba qodob ayaan u baahnaa laba qodob ayaa muhiim ayaan qabaa aniga haddaan doonayno inaan mid rasmi noqono biri aan mid ahaynaya jirta umaan dhalanin inaan tafaraar aan wiligeen ahaana waxaan u dhalanay oo wiligeed baan ahaan jirnay ma ruux Soomaali ee markii meel heblo wax lagu yeelo mar la wada kici jiray jirta marka qodobka koobaad waxa weeyaan aniga waxaan qabo Soomaali waa inay wada hadasho Soomaali wax badan oo iyada is yeeshay wax badan oo kala tabanaysa ayaa jira sidii burburka uu u dhacay oo civil war ay Soomaaliya ugu dhacay geeska Afrika oo idil uu ka dhacay mooyaane kii xagga ka dhacay wax xamar iyo Hargeysa iyo Kismaayo ku ekaay ma ahayn dhibki dhacay iyo intaan anaga kaliya joogna hatta waxa aan sameeynay iyo labka iyo qofkii xil loo dhiibaba maalin haddii qof madaxweyne looga dhigo wuxuu asaga rabo inuu sameeysto kii wasiir ahna saas qabale ninkii madax looga dhigan wax yaani gibigeeda dhanba waxay noqotay meel uu qas ka socdo waxa loo baahan yahay qabaaniga Soomaali inta isku imaado hal bil waliba halkaas aniga qoraalka waxaan ku iri hal bil ilaa 3 bilood waa inay fadhido Soomaali oo maxaa naga hadlaysan oo mutacallimiinta ay keenaan daraasada odayaasha ay ra'yi keenaan lis jafa marka aan gurigeen hagaagsanna waxa la wixii hore aan isu geysanay haday jiraan inta badan ama waa lis afin doonaaba waxaas aan afina waa laga gudbaa marka beejka asaga waxa hadda naga khaldanna waa la saxayaade waxa qodob horta waa qodob kaasoo waa inay Soomaali isku imaado oo degdegan iyo waxaan beenta oo aan midowna iyo Soomaalinimo aan ka xigna iyo qabyaalada aan joojina oo hadhow migi guriga laga baxaba wardee waxaan ma ahan hoos aan u wada hadalnada sidaan ugu baxna waxa loo baahay in la wada hadlo rasmi ah beentan korka laga taabana ma rasmi loo wada tawa mid qodob koobaad markaan waxaan leeyahay hal wada hadalkaasna mid dhab ah oo isku raagay ha noqdo jilib carra nin saaxiibkay ayaan eragaas ka qaatay jilib carra shir la yiraahdo aan isugu tagno jilib carra waxa la yiraahdaa odayaasha Soomaalida markay intay marada yar ay maarta halkan jilbaha ku xirtaan ee halkan dhabarkeena soo mariyaan oo saas inta loo fadhiisto oo waqti lisu qabanaynin ya 3 saacadoodaan ajandahan aan dhameyn ay ahayn jirki jilib carra aan galno waayahay aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Mustafa Xaaji Cadow oo ah aqoonyahan deegaanka Soomaalida u dhashay isla markaana waraysigan Hong Kong ku siiyay magaalada Jigjiga Mustafa aad iyo aad baan kuugu mahad celinayaa waxaan ku leeyahay aad baad ugu mahadsantahay waraysiga intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa waraysigii Mustafa Xaaji Cadow oo aan kaga qaadnay ama ku waraysanay magaalada Jigjiga dhinaca kamarada waa Nimcaan Axmed Cabeeye waraysiga waxaan ku qaadnay magaalada Jigjiga waa baahda Hong Kong TV caasimada deegaanka Soomaalida ee Jigjiga waraysiga waxa soo diyaariyay oo qaadiye wariye Cali Ayaale